السلام عليكم. maanta way taariikhdu tahay 7 bisha September sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha iyo kusimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. madaxweynaha Jamhuuriyadda oo mudnaanta siinaya dardargelinta horumarinta iyo joogteynta hawlaha baaxadda leh oo horyaala hay'adaha amniga waxa uu xeer madaxweyne ku soo saaray qodobadan soo socda. qodobka koowaad, madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu aqbalay iscasilaad uu soo gudbiyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isaga oo ku bogaadiyay shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habaynta hay'adda muddadii uu hogaaminayay. qodobka labaad, madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu u magacaabay gaashaanle sare Yaasiin Cabdilaahi Maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir in uu si meel gaar ah u hogaamiyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga magacaabayo taliye cusub oo ku yimaada hab waafaqsan shuruucda iyo dastuurka ku meel gaarka ee dalkeena. qodobka saddexaad, madaxweynaha ayaa u magacaabay Mudane Cabdisiciid Muuse Cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka, waxa uuna madaxweynuhu ku ammaanay shaqadii hufnayd ee uu ka soo qabtay taabagelinta siyaasadda amniga qaranka. qodobka afraad, madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyn, madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu isugu yeedhayaa kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka 18 bishan September sanadka 2022 si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waad mahadsantihiin.